wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa gaaray magaalada Hague ee dalka Holland si ay uga qayb galaan go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo 12 bishan Oktoobar ku dhawaaqi doonto xukunka dacwadda badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Wafdigani oo ka soo baxay Muqdisho ayaa u tagay magaalada Hague si ay goobjoog ugu noqon lahaayeen go'aanka kama dambaysta ah ee kiiska badda oo soo jiitamaysa tan iyo sanadku markuu ahaa 2014 xilligaasi oo dowladii madaxweyne Xasan Sheikh ay dacwadani geysay maxkamadda horteeda. go'aanka ku dhawaaqistiisa dhowr jeer ayay dib u dhacday waxaana kama dambays la sugayaa maalinimada Talaadada ah ee toddobaadkani in lagu dhawaaqo. Kenya ayaa toddobaadkii hore sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aan lagu wado inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ oo ku saabsan muranka soodinta badda kala dhaxeeya dalka Soomaaliya. ugu dambeyntii dowladda Kenya ayaa in muddo ahba ku adkeysanaysay in dacwada badda lagu xaliyo wada hadal halka dowladda Soomaaliya ay doorbiday in lagu xaliyo maxkamadda ICJ xukunkeeda oo ay soo saari doonto maalinimada Talaadada ah ee nagu soo foolka leh. Abdiraxmaan Atore, 5TV, Nairobi.